السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan meel kasto aad joogtaan asxaabay ku soo dhawaada mid kamid ah qisooyinka aanu idiin soo gudbinayno toddobaadkan. haddaba qisadayna toddobaadkan waxay ku saabsan tahay arin aad cajiib u ahayd oo ka dhacday magaalada barakaysan ee Makka al-Mukarrama sanadku markuu ahaa 2004. haddaba sida caadada noo ah qisooyinkeena waxaynu ka soo qaadanaa qisooyinka uu qoraaga reer Kuwait ee yiraahdo Abu Talal al-Hamrani. haddaba warbixintan waxaa laga soo xigtay hay'adaha ammaanka ee dalka Sacuudiga gaar ahaan magaalada Makka al-Mukarrama. haddaba yaana waqtiga idinku daalinin qisadan waxa ay ka dhacday magaalada Makka al-Mukarrama sanadkii 2004. haddaba sida aad la socotaan qoraagu wuxuu leeyahay magaalada Makka waxay lahayd xilligaas duleedkeeda guryo ciriiri ah ama obasiibooyin camal ah. inta badan meelahaas waxaa deganaa dadka sharciga aan haysan ee sharci darrada ku jooga Sacuudiga. badankood dadka halkaa degan waxay u badnaayeen dadka ka yimid jasiiradda la yiraahdo Borma ama wadanka la yiraahdo Borma wadanka la yiraahdo oo markaa halkaa ku noolaa dad muslimiin oo lagu dhibaateeyay halkaa oo inta badan u soo qaxay dalalka islaamka gaar ahaan Sacuudiga ayaa halkaa ku noolaa. marka dadkaasu badankood sharciyadii way ka dhaceen laakiin saasu ay tahay way iska shaqaystaan. khadaamay ku shaqeeyaan haweenkooda ragooduna way iska xamaashaan haweenkuna guryaha iyo meelahaas ka soo shaqeeyaan. marka dadkan sharci ma haystaan nidaam iyo waxay ku joogaan wadanka male haddii la qabto waa la tarxiilaya. midda kale bangiyada iyo meelaha iyo lacagaha ay soo shaqaystaan ma geeyaan. dahabka iyo waxa ay gataan guryahay ku haystaan. guryuhuna waa guryo maaragtay obasiib oo kala iska dad badan ay degan yihiin. haddaba marka waxaa jira la leeyahay waagaas 3 wiil oo dhalinyaro ah oo midka ugu weyn uu 21 sano jir yahay 19 meelahaas ayay jireen. waxaa la kala dhihi jiray Maxamed, Suldaan iyo Cabdiraxmaan. saddexdoodu waxay u dhasheen wadanka la yiraahdo Borma laakiin waa dadka sharci darrada ah ee ku nool meelaha guryaha cooshada halkaa degan. inkastoo markii dambe Sacuudigu ay burburiyeen guryahaas oo maaragtay hadda dib u habeyn weyn lagu sameeyay. laakiin markaasu sidaasay ahayd oo basiib oo kale ahayd magaalada Makka meel geeskeeda ayay deganayeen. wiilashan marka waxaa maadaama ay shaqo heli karin oo sharci aysan haysanin marka waxay bilaabeen qaab ay u noolaadaan. waxay ku heshiiyeen saddexdoodu inay noqdaan dad tuuga ah oo dadka dhaca. way fariisteen waxay yaan dhacnaa iyo kaloo dhici karaan dadka kaloo Sacuudiga ma dhici karaan ilaa qabto oo la tarxiilana way ka baqayaan. marka maxay ku heshiiyeen waxay ku heshiiyeen dadkooda oo maaragtay meesha la degan oo iyaguna sharci darrada inay dhacaan. waxay ogyihiin qofkan sharci darrada haddii la dhaco inuusan booliiska tegi karin uusan kiiskiisa ka hadli karin oo leeyahay iqaamadaada keen iqaamo ma haysto asagiiba lagu tuuraa. marka waxaa u jilcanaatay dadkan maadaama guryahan ay lacagta dhigtaan iyaguna dadka ay ka mid yihiin oo xogta ay hayaan inay dadkan iska dhuuqaan oo waxooda dhacaan. saddexdoodu way ku heshiiyeen. marka waxay sameeyaan khidad ah sida guryaha loo dhacayo waa la soo saaminayaa waa la fiirinayaa buugaa lagu qorayaa ilaa 5-6 guriga soo socota in la dhaca la rabo way sii qorayaan. kadibna baaritaana lagu sameynayaa islaanta iyo ninka isla qaba ninka goormuu maqan yahay islaantu kaligeed goormay guriga joogta waxyaalahaas inay qoraan way nadaamiyaan kadib ay guryaha dhacaan. guriga dhacayaan islaantay kufsanayaan guriga dhacayaan islaantay kufsanayaan kufsigu waa ku jiraa. waa niman dhalinyarada oo iyaguna waa hawshaas waa iska wataan waa ku dhex wataan kufsigooda iyo wuxuu ku dhex wataan.
mushkiladda marka meesha jirtaa dadka ay dhacayaan waa idiin sheegay marka waa dad iska masaakiina waxay sheegaan marka male dadkii nimanka marka waxooda iska wataan waxawaaye waa kibreen waxawaaye daroogada iyo waxa la isticmaalayo iyo waa yaabaysaa hawshu say u socotay oo baashu ay ugu kala kacsanayd oo marba xaafad ay ugu duulayeen oo ay wax u dhacayeen maalin maalmaha ka mid ah ayaa ninkii cabdiraxmaan mid la yidhaahdo ayaa wuxuu u yimid labadii kale suldaan iyo maxamed wuxuu yidhi qorsho fiicana idin hayaa guri dahab yaallo lacagna taalo aan ogay gurigaas marka waa inaanu tagnaa aynu habaysana xaguu ku yaalla meesha okay iyagu markay wax dhacayaan waxay samaystaan maaskaray wejiga ku xirtaan wejigooda way daboolaan midiyana way qaataan iyo waxyaabahaas dadku ku dhacaan gurigayaa loo dhacay islaan keligeedaa joogtay waa la galay dahab iyo lacag waxay sitaa laga qaatay saddexdoodiina way ku dayeen way kufsadeen islaantu marka kuwii horoo kale ma ahayn islaan xoogaa xoog leh ahayd way la dagaalantay marka cabdiraxmaanka maaskaradii uu watay ayay dhulka iyada dhan ka saartay way aragtay marka haddana wuu gashtay bas hawshu way dhammaatay waa la soo kala tegay markii lacagtii wixii la kala qaybsaday oo nin walba hawshiisii qabsaday markii dambe oo la isku soo laabtay cabdiraxmaanku wuxuu yidhi dhagaysta lacagtii aan habeen hore guriga ugu galnay oo aan kufsannay oo aan lacagta ka dhacnay ma garanaysaanu yidhi ma yedheen abtigay naagtiis baa yidhi way yaabeen kuwa kale yaa abtigay hooyaday la dhashay naagtiisa waa garanaya aniga inay dahab iyo wax haysato haye oo guriga abtigaa maan galnay abtigay gurigiisa oo meeshaa waxaan ka dhaxayna maluun anag kuwii kale marka hore way yaabeen way naxeen markii dambena dee caadi iska noqotay oo kaya dheen marka adigaba haddaan noo geyso abtigaa maxayta laakiin hal midaan ka shakisan maxaa ka shakisan tahay warniya maraan maaskaradu xoog intay ii qabatay islaantu ay iga tuurtay maaskaradii aan gashtay inay aragtaan u malaynaa waanay garanaysaa dee abtigay gurigiis waaba tagaa yidhi aniga mogta nimankii marka cabsiyaa gashay ma hubtaa in maaskar ma hubo laakiin haaf iyo inay iga aragtay iyo oranafeedhe markii dambe islaantii marka ninka way aragtay mogta wiilkan inuu wiilkii odageeda abtiga u ahaa yahay waxa saas u galay oo kufsaday oo hantideedii dhacay inuu yaa ogtay ninkeediyaa yimid waxay dhacay u sheegtay laakiin wiilka weli uma sheegin waxay tiri intaasaa dhacday 3 wiiloo dhallinyaraha guriga inta soo jebiyeen soo galeen way kufsadeen waxay lacaga meelaha noogu jiray iyo dahabkii yaraan aruursanay halkan ku jiran waa la tageen ninkii wuu qaraam maxaan samaynaynaa wiil marka booliiskii haddaan u tagno waa dacwoonaynaa aan niraanana waana la tarxiilaya nimankuna dee waxay yihiin ma garanayno ilaahay ceebteen hawstreska aamusu waxaana iska qarsanay waa la kufsaday waxaas dadnaha kula hadleen hal iska ilaahay iska baryanaa yiri naga daa waxaas cabaar markii la joogo waxay tiri hal midaan ka shakisanay maxaa ka shakisantahay wiilka abtiga u tahay cabdiraxmaan inuu ku jiray sida labada kale wiilka saddexaad inuu asagu ahaa wuuna kufsaday wuuna qolay kufsaday oo ku jiray waxa lacagahay meelaha tilmaamayna asagaan arkay wajigiisana maaskarada waa ka leexiyay waa arkay tiri inuu cabdiraxmaan yahay odayo ayaab oo walaashay wiilkii ay dhashay ma gurigeyga inta yimid islaantaydii kufsaday oo waxay haysatayna naga qaatay ma asaga tuugada soo horkacay haa لا حول ولا قوة إلا وأدت كان برونايا اللي لأن ير واي لكن مسلمين واي مركا بويا حسب ما يناول مركات
وعيبوبينا وانا نلا ترحيلايا مر والبا inaan aamusno anuga ku qasban hada booliis hada u sheegno maxaa sameey karnaa maxaan hadda ka qaban karnaa arikaas walaashay wiilkeedii islaantaydii kubsaday hadaan iraana dadkii oo dhan bay u sheekaysanayeen meeshii wadankii aan loo tarxiilaa waa dhibaato kale ruuxu yiri waxaan ilaahay aan ku daynaynaa iska sabar odaygu waa iska xanuunsaday iska تعبان وسكنود islaanta marka waxba mar walba maskaxdeeda ka guuxay wada ay u marto oo ninkan ay ku dacweysana male dahabkii ay muddo ka shaqeynaysay oo ay meesha ku urursanaysayna uu ka qaaday marka wada ay kaga aargudatana male hadda waa la istarxiilaa la leeyahay meeshan sharci ma haysato waa lagu rarayaa maalin maalmaha ka mid marka gabar ay qaraabo yihiin oo Brunei isla yihiin oo meesha oo basiibka Maka isla degan yihiin ayaa maartay sheekaysanayeen oo ay dhibaatadii soo martay ilaahay amarkiis gabadhii marka de waxay way ka dhax guuxayaan ma qarin kartid muddo marka qaris waa inaa sheegtay waxay tirino dhibkaas aniga u dhacay way uga sheekaysay maxay kugu dhacay war saddex wiil oo dhalinyaro inta ii soo galeen dahabkayga qaateen inta iguma simina way u kufsadeen waliba way iska ooysay gabadh ninkeygina wuxuu ka qaban kara malade waxay tiri hadaan waa dacweynaynaan annaga sharci darro ku joogna Sacuudiga nabanaxayaan waana masaafurinayaan waana xarayaan waa wadankeena inoo geynayaan anaguna meeshaan nolol maalmeedkan ku haysanaa dadkii halkaa naga jiray inta ka biilnaa walaalay marka maxaa sameeyaa walaalay waxaa sameysay male bas sheekadii waa la dhibaataa la soo sheegtay waa la kala tegay gabadhii kale oo marka gabadhan ay u warantay waxa qodba sira ku qaba oo habeenkii u soo dhuunta marmar u yimaada nin Sacuudiya oo madow oo meelaha maartay sukuurad ka hoteelada Maka ayaa meesha inta u yimaada ayuu la joogaa kadibna uu ka tagay islaantiisina ma oga lacagtan marka albaabadi waa xirtay meel kasta waa xirtay ninkii madowga yimid Sacuudiga ah lacagtan Brunei uu qabaa isagu marka meeshaan u yimid markii cabaar joogeen oo wuxuu yiri guriga dariishadihii wixii oo dhan maxaa u xirxirtay meesha awalba oo basiiba ay meel hawo xataa soo galaysa male ma sidee wuxuu jiraan war waxay tiri meeshii waxaa dhibaato ka dhacday kana dhacday maxay tahay dhibaatada dhacday way sheegtay marka waxay tiri gabadha ay dariskeena waxaa ku dhacay ee waa ku bariyaa qofna la soo sheegin oo yaa ku sameeyay xataa waxay ii sheegtay tiri wiil ninka qaba abti u yahay inuu maartay ku jiratim la hawla wala quwwata illa billah nikii waya Sacuudiga madowga oo dadkan marka waa guriga dhaceen waxaase ku soo way kufsadeen gabadhii wixna waa ka qaatay nikii marka wuxuu yiri cidna uma sheegay iska raaf mid kaloo waxaa jira askariya oo ninkan qaraabo yihiin Sacuudiga madow ah oo Maka booliiskeeda ka tirsan oo xogaa saraakiisha ku jira war ninkii uu sheegay wuxuu inuu dad meesha degan dhiba haysta aniga naaga ka qabaa yiri marka ninkii markuu la hadlay wuxuu inuu dadka dhibaatadaas haysata mushkiladaas haysata marka maxaan ka qaban karnaa in la tarxiilo iyo waxa kana way ka baqayaan wuxuu yiri iska raaf ana bal eegon la tarxiilin ana hawsha qabanayo bas kila joogay niman booliisa soo baxay oo ninkan madow ku jiro gurigii loo tilmaamay tageen islaantii la dhacay macnaa oo wiilkii abtigiis gurigiisii la dhacay ayay tageen ninkii soo kaxayeen ninkii waa naxay wuxuu sir waa lagu tarxiilaa wuxuu dhays ma lagu tarxiilaa
waxaan rabaa buu yidhi dhibaato idin haysata inaan wax ka qabto tarxiil ma idinkugu imaanno inaad sharci darro ku joogtiin wadanka wuxuu ogaa laakiin meeshan dembiga meesha ka dhacay ayaa waxaan rabaa dadka dambiilayaasha oo dadkan dhibaya inaan qabanno marka inaan naga caawisaan rabnaa haye marka waxaan u baahannahay naagtaada sida loo dhacay waxa dhan inaan waa naagninkii waa la wareystay markii uu ogaaday inaan la tarxiilayn oo ninka oo booliiska nin fiican yahay wixii dhan uu sheegay islaantii ayadana loo yeeray way dhageysteen booliiskii way wareysteen wiilka Cabdiraxmaan la leeyahay ayay marka sheegtay inuu isagu ahaa waa iska baxeen marka gurigooda iska aadeen lama tarxiilin waxba laguma sameeynin waa la iska daayay ninkii Sacuudiga ka ballama wuxuu yiri dadka masaakiin waaye hal tarxiilinina waxa dhibaatada dhan loogu geysanaa waa intaas ninkii Cabdiraxmaan kee nafsoo siiyeen booliiska inta u tagay qabteen maxamedkii iyo suldaankii la socdayna waa soo qabteen asaga sheegay waa xareen meel inta la geliyay la garaacay ayay wixii oo dhan sheegeen mid walba si gooni maartay mid meel gooni inta lagu xiray la garaacay ayay isku wax sheegeen marka waxay yiraahdeen annaga asaas sameeyay annaga intaas waliba gurigaas kaliya ma intaas oo guriyana marka Cabdiraxmaan ku xalay guriga abtiga see ugu sameys wuxuu abti ma jiro annaga waxaan isticmaalnaa darooga iyo xashiish iyo waxa saabna marka de abti iyo adeer ima kala loo dhaa meeshan annagu cidii aan wax ku aragno waa dhacayn okay marka maxas qaabkee dadka u dhacdaan marka buugay wataan marka waxay leedahay buugaas ku qornaa maalmaha soo socda dadka aan rabno inaan dhacno oo aan baaritaanka ku sii sameeyno kadib aan galnaa buugii shaan markii loo qabtay number 1 yaa ma garanaysaa islaantii ninka Sacuudiga madow qudbasirada ku qabay ayaaba ku xigtay ayaday u soo socdeen iyadii ilaahay ka fakiyay ninkii markay u sheegtay wiilka la soo qabtay ninkii waa la yaabay nimankii waa la qabtay saddexdoodiiba de Sacuudiga daa waxyaabahaas oo kale ku dhaqanto waliba magaaladii Makka ee sharafta lahayd ay waxaas ku sameeyaan war dadkan dad naxama markaas inta la qabtay saddexdoodii wuxuu yiri waa la xukumay iddaama lagu xukumay dil qoorta laga jaray saddexdaba suldaan iyo maxamed iyo Cabdiraxmaan qoorta laga jaray kadibna dawladdu waxay go'aan ku gaartay in meelaha sidaas oo kale taa dhan la baabi'iyo wadanka meel kasta oo marka qadiima oo waxay guriyaha isku raranka iyo basiibka iyo waxa dhana in marka sidaas go'aan lagu gaaray la dudumiyo oo maartay guriga nadiif laga dhigo si aysan tuugada iyo waxyaabaan qashinka marka aysan halka u galin marka meesha marka wax ka dhacayaan waa Makka al-Mukarrama oo fiirsada waa 2004 marka dadka kan meel ay ka dhaxayaan male meel kasta waa barakaysantaa meeshan marka laakiin marka dabadee waa kan waa la soo qabtay qoortaana laga jaray marka xaalku marka halkaas maraa marka sharci la'aanta dhibaatada ay leedahay iyo wadan adiga aadan lahayn oo sharci darro ku joogtid dhibka kugu qabsado oo xataa aadan dacwoon karin waxyaabahaas ka mid tahay marka dad badan oo jugtooda qarsanaya jiray ogow meeshan marka lagu leeyahay intaan dhibaa lagu arkay hadda lagu maqlay laakiin waxa lagu leeyahay kiiso noocaas Sacuudiga ka jirta qofkii maskiin waaye sharci ma haysto in la tarxiilo ka baqaya dhibaato marka u geysanaysa ma ku soo dacweyn karo marka waa nolol aad u adag dadka qaarkood Sacuudiga ay ku nool yihiin lagu leeyahay marka qoraaga wuxuu leeyahay marka sheekaasu halkaas marka noogu dhamaatay toddobaadkan runtii waxay ahayd sheeko aad cajiib ah adinkuna fakari aragti bal waxa ka qabtaan noo soo qora sida ay idin la tahay لايقرية أو شرقرية channel كينا قصوين كنظارة اللبا قصدنا تضوات كنا ورنقينتها انت أن مركلة قصوين كلا كل ما ينو أصحابي ميل قصتو أتشوكتان لما تقريب